السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري كسو هذا عشر كيلوات موجود وحوي أفراد كورسات فوكابولريغا عشر كان إن شاء الله وحن واحد دونا سمارت بارافريسين تكنيكس سمارت بارافريسين تكنيكس وحن واحد دونا بارافريسين ليلة هذا وحن وصل هذا عشر كي هوري marka casharkan dhammaadkiisa ardayga waxa laga doonayaa inuu practical techniqueska paraphrasingka inuu fahmo lix baan insha Allah soo qaadan doonaa si tallaabo ah inuu maaragtay u apply gareeyo isagoo tusaalayaal ku apply gareynaya sidoo kale inaan practice ku sameyno paraphrasingka qaabka loo sameeyo loo isticmaali doono tool marka haddaan u gudbo lixda noocaan haysano waxa weeyaan waa halkan hadda uga jeedo kan koowaad waa synonymsku waa erayada isku macnaha ah laakiin qoraalkooda uu kala duwan yahay ayaa waxa la yidhaahdaa synonyms marka synonyms in la isticmaalo tusaale ahaan sentencesigaas synonymka erayga ku jira oo erayada inta la calaamadiyo technique-aan hore u sheegnay oo kale marka ugu horreysa bal inaad fahantid waxa lagu siiyey kadibna aad qoratid meelaha ay macquulka tahay in paraphrasing lagu sameeyo marka erayadaas inaad synonymkooda ku bedesho ayaa technique-ka koowaad ah technique-ka labaadna waxa weeye word formka eraygu qaabka uu u yaalo tusaale ahaan hadduu ahaa adverb ina adjective ka dhigtid aduu formkii markii hore uu ahaa hadduu verb ahaa inaad noun ka dhigtid ama noun aad verb ka dhigtid formkii uu ahaa inaad bedeshid ayaa wuxuu yahay kan labaad waxa weeye istiraatiijiyadda labaad aad isticmaali kartid kan saddexaad waxa weeye word orderka inaad bedeshid tusaale ahaan kuwii objectiga ahaa inaad subject ka dhigtid ama subject ahaa inaad object ka dhigtid taas waxa weeyaan waa active voice-ka laakiin tan hadda word orderku very simple word orderku waxa weeye ereygu markii hore meesha uu yaallay inaad kasoo rartid active voice iyo passive voice-kuna waxa weeyaan waa sidaa hadda aan sheegayay waa ereygii in active-ka ahaa in laga dhigo passive kii passive-ka ahaana laga dhigo active tusaalayaal waa arki doonaa sidoo kale combining in la isu keeno laba sentence ama laba sentence split lagu sameeyo oo markaa la isugu xiro conjunction sidoo kale in la isticmaalo signal and phrases in la isticmaalo intaba tusaalayaal baan ka arki doonaa haddaan ku bilowno technique number 1 istiraatiijiyadda koowaad aad isticmaali kartid waxa weeye replace words with correct synonyms erayada inaad ku bedeshid synonymkooda runtii waana qaybay tahay inaad aad maaragtay uga taxadirto markaad samaynayso waxaa jira erayo waxa la yidhaahdo loose synonyms oo maaragtay macnahaasi boqolkiiba boqol uusan ahayn kii uu lahaa kuna xiran contextiga ay ku jiraan markaas macnaha waxay keeni kartaa haddii aadan kii horta waxa waa paraphrasingka inaad fahamsan tahay haddii markaas aad samayso loose synonym macnihii uu isbedelayaa marka taasna inaad maaragtay laakiin markaad samaynaysid keliya waa correct synonym old synonyms maaha synonymka saxda ah oo macnihi aan isbedelayn inaad ku bedeshid ayaa la yidhaahdaa tusaale waxaan haysanay important muhiim essential waa isku mid children bay ahayd youngsters waa synonyms be careful big problem serious problem labadaan isma qaadan karaan hadda big problem iyo serious problem waxa weeye labadaan macnaha ma noqon kara waa loose synonymkii hadda aan ka hadlaynay weeyaan marka waa mar kasta waa inaad fiirisid macnuhu ma iskeenayaa labadaas erey macnihii ay lahaayeen haddii la isku bedelo
xataa waxaad ka fahmi kartaa Soomaaliga dhibaato weyn iyo dhibaato khatar ah. Marka midna wuxuu muujinayaa sayska macnaha mushkiladda jirta inay mushkilad weyn tahay oo in la xalliyo ay adag tahay weeyaan. midna waa serious, macnaha waa mushkilad u baahan in il gaara lagu fiiriyo oo ay tahay in si gaara loo fiiriyo oo macnaha seriously loo qaato weeyaan. marka macnaha labadaas erey oo kale hadda synonym ahaan laysuma adeegsan karo. macnihii loola jeedayna si hadda halkaa ka dareemi kartid waa isbedelayaa. waxa weeye technique labaad oo la isticmaalo marka la sameynayo paraphrasing-ka waa in la isticmaalo in la bedelo word formka ereygu markii hore qaabka uu yaalay. tusaale hadda noun in lagu bedelo verb ama adjective lagu bedelo adverb. tusaalahan haysanaa waxaa la yidhi the city is populated. The city is polluted. magaaladu waxa weeye way tikhow, waa maaragtay waa wasakhaysan tahay camal oo kale. very simple. polluted baa waxa lagu bedelay pollution oo noun ah. verb bay ahayd maxaa laga dhigay noun. marka waxa weeye pollution affects the city. waxaa leeyahay tikhowgii ayaa saameeyey magaalada. marka waxa weeyaan waad fahmi kartaa waa ereygii in la bedelo. tusaalayaal badan iyagoo lana waxaad ka heli kartaa sourceskan. hadda halkan oo kale waxa weeye waa IDP, isla mawduucan weeye, isla techniqueskan ayaa la isticmaalayaa iyagoo sharaxaad dheeriya wata. marka halkan baad kasii aqrin kartaa. sidoo kale sourceska kale oo iyagana aan kula wadaagayo oo aad tusaalayaal dheeriya ka heli kartid waxaa kamid ah effective paraphrasing-ka oo isagana sharaxaya techniqueskan. iyo qaabka waa dib maaragtan ka sharxi doonaa. technique-ga saddexaad ama khidada saddexaad ay tahay inaad isticmaashid waa inaad bedesho orderkii ay u yaalaan. waa rearrange sentence structure. very simple. sentence structure-ka haysatay ayaa dib isugu habeynaysaa. tusaalahan hadda people believe technology improves communication. dadku waxay aaminsan yihiin in teknolojiyaddu ay hagaajiso wada xiriirka. markii la bedelay maxay noqotay technology ayaa markaan waxaa la keenay horey. technology is believed to improve communication. improves communication sideedaa loo daayay. very simple. waxaa lasoo bedelay waxaa subject laga dhigay technology is believed to improve communication. halkan waxaa la qariyey waxa weeye waxaa la qariyey maxaa la yidhaahdaa doer. waa dadkii waxaan sameynayay baa la qariyey. marka waxa weeye very simple. waa technique-kii saddexaad oo ah in word orderka la bedelo. halkaasi technology olayd iyada ayaa horey la keenay. waxa weeyaan tan shanaadna waxa weeye technique shanaad waa in la isticmaalo active iyo passive voice. active voice-ku waxa weeyaan inta badan waxaa subjectigii ayaa lagu bilaabayaa. objectina waxa weeye uu ku dhamaanayaa. for example government provide healthcare for citizens. dowladdu waxay siisaa daryeel caafimaad ayay siisaa muwaadiniinteeda. marka cidda la siinayo daryeelka waa muwaadiniinta. okay. hadda halkan waxa weeye waa active, waxaa laga dhigay passive. waxaana la yidhi healthcare is provided to citizens. daryeel caafimaad ayaa waxaa la siiyey muwaadiniinta. ayaa siiyey by government. dowladda ayaa siisay. marka waad fahmi kartaa active waxa laga dhigay passive. insha Allah casharkan isagoo faahfaahsana waxa weeye qaybta grammarka ayaan ku qaadan doonaa active-ka iyo passive-ka. laakiin very simple waa waxyaabaha aad isticmaali kartid markaad waxa weeye qaybtan techniques-ka markaad paraphrasing-ka aad sameynaysid in ereygii ciddii maaragtay falka sameynaysay inaad gadaal geyso. tusaale ahaan
haddii hadda ay ahayd oo kaleeto kaba soo qaad waxay ahayd Ahmed is explaining a lesson waxaad dhehaysaa a lesson is explained by Ahmed casharkii baa la sharaxay waxaana sharaxay Ahmed marka hore waxayd Ahmed wuxuu sharaxayaa casharka ya marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa active voice-ka looga dhigaa passive voice technique shanaad waxa weeyaan waa combining or splitting sentences waa laba sentence in la isu keeno ama la kala qaybiyo tusaale hadda waxa weeye waxaan haysanaa many students study hard they want to pass exams arday badan ayaa si adag wax u barta waxayna doonayaan inay imtixaanka baasaan hadda saa ujeedad halkan labadan sentence macnaha wax isku xiraya ma jiro wax isku xiraya ma jiraan maxaa la yidhi many students study hard because they wanted to succeed in exams very simple halkan ba waxa la soo geliyay because ayaa la soo geliyay ya oo ah passive device marka waxa weeye markan oo kale waa combining sometimes waxa la samayn karaa splitting hadda tan haddii lagu siiyo tan u bedelatid no matter waa splitting way combining iyo splitting waa oversight waxa weeye istaraatiijiyadda ama maxaa la yidhaha technique shanaad ee tahay inaad isticmaasho markaad paraphrasing ka samaynayso aad u bedeli kartid waxaa ka mid ah inaad isticmaasho templates ama phrases aad isticmaasho tusaale ahaan hadda phraseskana template ku ahaa it's widely believed that a common opinion is macnaha waxaa la yidhi dadku waxay aad u aaminsan yihiin iyo waxa si guud loo aaminsan yahay oo dareemi karta oo isku macnihii isku meel ayuu imanayaa ya marka tusaalahan hadda oo kale maxaa la yidhi originalku waxa people think climate change is dangerous dadku waxay u maleeyaan isbeddelka cimiladu inuu khatar yahay ya it's widely believed that waxa aad loo aaminsan yahay climate change poses a serious threat waxay wadataa khatar ayay wadataa ama khatar ayay leedahay climate change isbeddelka cimilada marka technique-gaasna waxa weeye waa technique lixaad oo qaabka maaragtay ay tahay markaad samaynaysid paraphrasing-ka marka intaana ku gabagabayn student activity-gan maxaa ugu baahan tahay inaad paraphrasing u samayso ama paraphrasing-ka maxaad ugu baahan tahay very simple paraphrasing-ku wuxuu aad u anfacayaa marka aad hadlaysid tusaale ahaan waxaa ku jirtaa interview markaa ku jirtid su-aalaa lagu weydiinayaa ereyga su-aasha sidii lagugu weydiiyey inaad maaragtay erey kale isticmaashid waxay muujinaysaa vocabulary-gaagu inuu maaragtay strong yahay ayay muujinaysaa tusaale ahaan hadda haddii lagu yidhaahdo maxaad xiisaysaa xilliyada aad firaaqada leedahay waaba af soomaaliba maxaad xiisaysaa xilliyada aad firaaqada leedahay ayaa lagu weydiiyey ya what do you enjoy when you are free okay markaasoo kale haddii hadda aad tiraahdid waxyaabaha aan xiiseeyo markaan fasaxa ahay waxa ka mid ah macnaha waxaad beddeshay wixii hadalkii la yidhi ayaad wax ka beddeshay anaad waxay muujinaysaa inaad erayo kale inaad heli karto ayay muujinaysaa marka paraphrasing-ku wuxuu kaa caawinayaa inaad muujiso awoodda aad leedahay oo luqadeed ama vocabulary-ga ayuu muujinayaa tooliska markaa isticmaali karto oo maaragtay aad ugu practice ku samayn kartid waxaa ka mid ah kan hadda halkan aan maaragtay ugula wadaagayo kaba soo qaad hadda waxaan gelinaynaa hadda halkan aan bagelinaynaba kaba soo qaad waxaan dhahaynaa Ahmed Baleni
the lesson students. Ahmed is giving the pupils an explanation of the lesson. Paraphrasing ayuu ku sameeyey. Soo ma aragt? Sorry, halkan waa explaining. N ayaa ka maqan. Balan arag inaan wax ka bedelo. Just wuu fahmay. Axmed wuxuu siinayaa ardayda sharaxaad casharka ku saabsan. Iyo Axmed wuxuu sharaxayaa casharka ayuu u sharaxayaa ardayda. Ka just wuxuu synonyms ayuu isticmaalay. Waxa weeyaan marka waa paraphrasing tool oo AI ku shaqeynayo weeye waana free waa isticmaali kartaa. Waxa weeyaan hadda qaabkan haddaa fiiri sidoo kale waa inuu isticmaalay lessonkii ayuu u geeyay gadaal ardaydana hore ayuu keenay. Dabcan wuxuu isticmaalay inuu bedelay sentence structure-ka markii hore u taalay ayuu isticmaalay oo ah waa haddii maaragtay aad xasuusatid waa technique uu yahay waxa weeyaan technique marka technique hadda halkaan uu isticmaalay markaan gelinay waxa weeye waa inuu bedelay orderkii ereyada uu yaalay inuu technique saddexaad ahaa. Marka waxa weeye hadda students horey ayuu keenay Ahmed giving the students an explanation of the lesson. Marka waa tool ka caawin kara inaad paraphrasing inaad practice ku samaysid xilliyada maaragtay firaaqada aad leedahay. Kan ayaa sidoo kale ka mid ah toolska ayagana isticmaali kartid. Intaba waad heli kartaa linkiyadooda qaybta waxaan dhigi doonaa casharada xagga hoose ayaan maaragtay dhigi doonaa. Techniqueska sidoo kale ku anfici doona waa techniqueskan ayaa ka mid ah oo effective paraphrasing techniques qodobadan soo sheegnay ayay maaragtay iyaguna sii xoojinayaan. Sourcigan wax badan ayaa ka heli kartaa runtii waana check plagiarism-ka. Plagiarism-ku waxa weeye khashka tusaale ahaan kelmad qof leeyahay inaad sideeda u soo qaadato waa plagiarism adigoo aan samayn text citation iyo reference. Inta badan blogskan anaga waxa ku jira text citation iyo reference labaduba waa ku jiraan si aan u ilaalino waxa weeye dadka kale waxa ay leeyihiin assetka runtii qoraalkan iyo waxaan waa iska asset marka inaad ku samaysid waa wax maaragtay standard ah oo aad loo isticmaalo. waxa weeyaan waa sitekan marka wax badan waa ka helaysaa linkigan insha Allah qaybta casharka xagga hoose ayaan ku dhigi doonaa. Haddaan marka soo gabagabayno waxa weeyaan waxaan rabaa inaad isku daydid waxaan halkaan niri choose one of these sentences and paraphrase it using two techniques. Laba technique oo ka mid ah techniqueskan soo sheegnay ayaad labadan sentence mid kasta paraphrase ugu samaynaysaa. Two techniques ayaa isticmaalaysaa. Tan koowaad waxa weeye children should help with housework. Ardayda waa in laga caawiyaa shaqada guriga ama ardaydu waa inay caawiyaan housework waa in maaragtay ardayda waxa weeye ay waalidkood ku caawinaan. Marka labadan sentence waa qaadaysaa waxa weeye mid kasta waxaad ku samayn kartaa laba just two techniques ayaa isticmaalaysaa. Tan one technique baa isticmaalaysaa tan another technique baa isticmaalaysaa. Labada technique-na waa inay ku calaamadsan yihiin. Sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa inaad ka shaqaysid quiz-ka further resources ka tagtid waxaad ka helaysaa xog dheeri ah. Casharkeena maanta intaas ayuu ku eegyahay. Asalaamu calaykum.